faafinta ayuu wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ah. Okay waxaa tiri ilaaladiis qaaska ah ayuu wuxuu ahay maxamed gacmo dheere oo ahaa ninkii wasiirka warfaafinta loo magacaabay xilligii Almahdi Soomaa saas aad iyo aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka ah watuu soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waagas raad Muqdisho ka shaqeey jiray marka shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa bad inaad wariyaasha Soomaaliyeed dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqay horta Soomaali ay u dhamaayeen inta Soomaali ee ka koobanto dhan meesha joogtay wax wariye oo dakana qabina ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweynaa joogay dad diraa joogay kulli waa la joogay meesha marka inta Soomaali ay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan qarin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihii asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda aad u jeclaa marka wuxuu dhihi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn asagoo marka studio la soo geli jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii markii dambe qor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa mase nin iska wuxuu ahaa wardiiska taariikh nololeed macnaha intaad ka taqaano oo meesha ka barata asiga absalaam wallahi asaga wuxuu noo sheegay anaga hore ma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dowladda gacanka kadibna qorigaan aan qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeeday ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkan nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal i caawiyo marka madaxa raadiya waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah u naxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane xilligaas idaacadda TV raadiyo Muqdisho waxaa madax ka ah tiri dhaashana madax ka ah waa qaybta raadiyo TV ma jirin malena ma shaqeynay TV howlgab waa marka waxaan rabaa dadka Soomaali inaa wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed hadii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarad markaas magaalada ka qaxay u dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantiin aan sheegto hatta qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labaad kugu cilna xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed waaye nin waliba reer caruur haysta waaye inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa badina xusuustaada intaad ka barat intii yareed oo taqiin intaad ka barat bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barat inaad noo taabato adoo maasan dii dacdaada oo maasanta aniga horta 2 mitir ay sugayso cid bina aadana oo aan mataqaana ka baqay ama aan figa xishoon ma jirto qofka xaqiiqada aniga hadii hooyaday ay ku dhashay hadaad dambi ummadda ka gashid oo aan noolahay markaas waxaan leeyahay ninkaas ummadda laga qabtay dibka hadda ka hor ayuu geystay ninkani markuu shaqaalihii saas ugu milmay waxaa lagu xiray nin la yiraahdo Cabdi Shiicali asaga buu yaqaanaa Allah yarxamo Cabdi macnaha waxa shaqada nin jecel u ahaa marka maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacmo dheere asigan waa ilaalo ku soo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadiyo Muqdisho ka mid noqday Soomaa wiil okay waaxda raadiyo Muqdisho la shaqeynaa teebeed qaybtaysa ahayd adoo faahfaahinaa insha Allah waxaan rabnaa wixii sayta u kala dhigno mogtaa ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saare ka ahaa oo la dhihi jiray Cabdi Shiicali Allah u naxariistee xogaa ina soo dhawaato jacalaas mikrofoonka ugu dhawaaday Cabdi Shiicali soo dhaw bravo Cabdi Shiicali bravo Cabdi Shiicali nin la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saalax Cabdi Shiicali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa program soo saare iyo soo jeediyo labadaba ka ahaa Allah yarxamo okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raaci jiray asaga markii dambe u dhiibay dhowr program uu yiri bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinayna Cabdi Shiicali ninkan soo saaray kadib Cabdi Shiicali wuxuu ku shabadeeyay in uu yahay nin daarood waan Arab Maxamed Saalax waa wuxuu ku shabadeeyay inuu daarood yahay
daarood waayu dhahay ninkan booskan anigaa ka qaadan doona mustaqbalka macnaha hadalkaas adiga ma taagna markuu lahaa saad ku ha ogaatay ha hadalkaas waa joogno anagoo joogno oo wakaaladda wararka joogno marka ninkan mustaqbalkan waxaan u qaadanay mustaqbalka in uu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraaddeedna madaxda ay ka qaadi doonto cabdi cal la dhihi doono ninkan ayaa kaa aktifsan ninkaana ku wareejinay meesha saas u haysteen marka adig markuu hadalaas dhihi jiray annaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka aktifsanaan doonaa wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa wuu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yey laakiin nagu soo noqon doonaa cabdisal waa kusoo noqotay maasanta waa soo noqotay cabdisal cabdisal waa soo noqotay maasan tahay marka waa ka xumahay qadkiisa xoogaa ciladaa kusoo baxday insha allah laakiin qadka wuu iska hagaajin doonaa insha allah cabdisalaam waa ninka markhaatiga nool oo hadda lahayo oo weliba dadka si wanaagsan u yaqiino goobjoog ka ahaa la soo shaqeeyey taariikhda uu soo sheegi doono insha allah uu nagu soo noqon doonaa cabdisalaam insha allah sidaas kusoo noqon doona qadka kusoo noqon doona dhibaato malaha balse intaan noo soo noqonaya cabdisalaam waxaan jeclaan lahayn bal inaan waraysi xasaasiya laba waraysi uu bixiyey laakiin mid kamid aan soo qaadanay waa mid uu ku qirinaayo inuu ahaa wariye inuu ahaa oo maanta bixiyey waraysigaasaan rabnaa bal inaan dhegeysano wax yar waa isku soo noqonaynaa cabdisalaam waa soo noqotay braawo cabdisalaam aad iyo aad waa maasan tahay waa soo noqotay cabdisalaam waa jeclaan lahaa inaha braawo allah ciise waa soo noqotay cabdisalaam marka waxaa ka wadaa markaas tartan inuu meesha ka jiri doono halkaas iyo wad marka ka soo halkaas marka ninkan waxaan u malaynaya inuu tartan geli doono uu cabdishii cali booska asaga lagaga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana allah iraxmo oo la yiraahdo abukar wariye la dhihi jiro asagana oo dhalinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iskaa nin dhalinyara iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yiraahdo shiiqaal waa garta kaasina magaciisa wariyaas kale magaciisa abukar la dhihi jira abukar yare abukar wariye inta badan ay dhihi jireen marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar marka abukar dhalinyaradaasuu raacay kadib wuu soo noqday abukaraa noo yimid mahad allah iraxmo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad cadda la dhihi jiray iikaadi hega waalin waxaan jeclaa marka hore inaad gu socodso kii oo la shaqan jiray magaciisa muxuu ahaa kan waxaad tiri abukar wariye waa shiiqaala tiri shiiqaal waa wiilkaas carab saalax uu ahaa kanina wuxuu ahaa abukar ka kale magaciisa tiri iwaali kikood carab saalax kan ahaa ii sheeg cabdishii cali cabdishii cali wuxuu ahaa ninka wariyaha qaybta barnaamijka ganacsiga ganacsiga u qaabilsan raadiyo muqdisho okay kaas waa carab saalax waxaan jeclaa nin walba qabiilkiisa inaan insha allah xataa laftiisa aan xusno u kaadi marka kaas labadaas waxay ahaayeen cabdishii cali iyo abukar wariye labadaas shiiqaal iyo carab saalax ahaayeen labaduu marka waxay ka shaqaynayeen waa ninkan okay hore ugu soco marka haye raadiyo muqdisho ay ka shaqaynayeen mahad aadan xasan nin la yiraahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska asagana mahad aadan xasan la dhihi jiray mahad aadan xasan haye oo asna ahaa ogaadeen oo kasoo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos ula shaqeynayeen laftooda soo ma may ulama shaqeynayeen macnaha raggaas wuu calaamaysta rag u calaamaysta waa ma fahamtay asaa calaamadaystay waa gartay wuxuu u haystaa markaas ayuu waa gartay marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan marka xilligaas soo ma aad u kacsan abukara marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo kismaayo ka yimid marka abukara marka sheekeynayey markaas waxaan taagannahay meel la yiraahdo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona annagoo badan marka abukar wuu noo sheekeynayey hebel baa xag kaga soo tegey hebel baa xagga kusoo arkay waxaasuu daldalay marka ninkan wuu soo galay abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynayo marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tegey uu dhulkaas kasoo warramayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsaday asagana uu dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahamtay nin la yiraahdo maxamed cali xaange allah yaraxma asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaligaba barnaamijyo ka samayn jiray
oo xaqiiqatan xaangi taariikh dheer gadaalan ka geli doonaa marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax afartood hal subax uu dilay waxaa tiri cabdi sheekh oo carab maxamed saalaxa abubakar wariye oo shaqaala mahad aadan oo ah ogaadeen iyo maxamed cali xaangi oo ahaa nin ma jirtaan ma jirtaan waa aad iyo afartaas hal subax ayuu sarta meesha musawaca dheer oo badda iyo dhulkaas oo fi mataqaanaa oo baraawo musawac hadda waa shaqeeya musawac dheer waa fahmay afartaas musawacaas ku dilay meeshaas musawacoo la galay meeshaasuu ku dilay allah yaraxmo waxaa kuu soo haray nin yidhaha cabdiqaadir cali iidle oo ahaa nin xawaadla asagana شوف مالك عبد القادر علي يدلي عبد القادر علي يدلي ونحو والله سيفع ايه اوكي كان هو لمبر شناد وين وعرى مرك ديلكس او دحين ان نو شرحدو ديلكس او دحين لا waxaan moogtay laftii caawa waxaan dhageysan doonaa ummadoodan dhageysanay Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan rabaa inaad bisarax aad qoro nin walba si uu dilay iyo taariikhdu hadii xasuusto iyo sababtu iyo xilligu dilay iyo waqtiyada kala duunaa xaaladaas waqtigaas waxa waqti xaalad xun tahay marka insha Allah ku noqoba insha Allah maasan horta ninkani marka ugu horeysay aroor hore waxa shaqada soo galay ninka la yiraahdo Allah naxariistay mahad aadan xasan mahad cabde ما حستا تاريخ ما حستا تاريخ و ابريل ayay ahayd 8 meelahaas ay ahayd 2009 ابريل waa 1990 1990 ابريل 1990 hore u socay marka mahad ayaa aroorta hore shaqada soo galay 8 barka meelahaas ay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fariistay haye mahadu gacanta qabsaday meeshaasuu la galay marka dhalinyaro marka meesha taagnaa noo sheegta annaga waxaan soo galnay 10kii waxaa la yidhi mahad saaka xafiiska ma uusan furin dhalinyarada iridda taagnaana la taagneed oo dibaddii la taagnaayeen waa gartay taakiyaa wuu ku jiray bes marka mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shaki yaraa bilowday mahad ma laabanine shaquu usoo kalahay xaguu ka baxay haye kadib abukar wariye haddana soo galay abukar wariye iriddu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa musawicuu la galaa meesha kore meesha musawicuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa gartay wuxuu dilay maa dilay abukar wariye dilay waa hal subax waa bisha waa abriil 91 haye haru soco kadib aniga iyo